الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. والله شرفت له وحنا ربنا ما تيرينا نكهذا maalinta lagu magac daray maalinta jacaylka oo ay dad badan oo muslimiinta ka mid ah si aan cilmi lahayn ay ugu dabaaldegaan maalintaas walaalayaal waxaa habboon intaanan ka hadlin waxa ay diinta ka qabto inaan u yar dib u fiirino taariikhda maalintaas. jacaylka waa fitro uu ilaahay u abuuray dadka isla markaana diinta islaamku waa diin jacayl ku dhisan dadkana amartay in ay isjeclaadaan gaar ahaan lamaanaha isqaba. guurka halkudhigiisa iyo raaxadiisana ilaahay wuxuu ga dhigay jacayl. marka jacaylka maalin gaara kuma ahan diinta islaamkana jacaylka aad iyo aad ayay u boorisay. nabigana sala allahu calayhi wasalam meelo badan ayuu ku tilmaamay inay muslimiinta isjeclaadaan. qur-aankana uu sheegay jacaylka waa arrin markaa muhiim u ah lafdhabarka muslimiinta ugama baahna inay gaalo uga daydaan. maalinta dabaaldega ciidda waxay dhaqan u tahay dadka reer galbeedka ama gaalada. meesha ay ka soo jeedana waxaa la sheegaa inay xiriir la lahayd diimihii hore ee aaminsanaayeen dadkii la oran jiray romaanka ama jiri jiray waagii hore. maalintaas ayay u dabaaldegi jireen 15 bisha Febraayo ku aadanaan jirtay. waxay aaminsanaayeen in ilaahyadooda ka mid ah ay u dabaaldegaan dagaalada iyo waxaasna ay ka nasan jireen. kadib markay kiristankii qaateen ayaa waxaa laga dhigay maalintaas maalin waafaqsan barakaysan waa dagaalada iyo ay ka nastaan. nin la oran jiray Claudius oo boqor ahaa romaanku ahaa ayaa wuxuu mamnuucay in maalintaas isguursadaan ama askarta ay guursato ayuu mamnuucay. wadaad la oran jiray Valentin oo halka loogu magac daray ayaa wuxuu bilaabay inuu si hoose isugu meheriyo askarta oo uu si hoos ah ay isu guursadaan. ninkii waa la qabtay waa la xukumay muddo xabsi ku jiray 14 February oo ah maalinta hadda loo dabaaldego jacaylka ay ku sheegaan ayaa ninkii la dilay. halkaas ayuu magaca ka helay. marka waxaanu dareemaynaa inuu xiriir ka dhexeeyo dabaaldega maalinta jacaylka iyo diinta kiristaanka. haddaba diinteenna maxay ka qabtaa arrintaas? culummada islaamka lajna fatwota waxay sheegeen inay maalintaas xaaraan tahay in loo dabaaldego. waayo maxaa yeelay ciidaan ahayn ciidda islaamka uu sharciyeeyey in loo dabaaldego waa arrin khaldan weyn. culimmadana in badan ayay arrintaas uga hadleen. waayo waxyaalaha ka mid ah qalbiga ayuu mashquuliyaa. wuxuu mataqaanaa baneeyaa macaasida raggii dumarkiina isdhexgalaan. waxaa kale ay soo hosgelaysaa in arrintan haddii ciid laga dhigo diinta waxa lagu soo daray. waxaana radin doona xadiiskii Caaisha man axdatha fi amrina hada maa laysa minhu fahuwa rad. qofkii kusoo dara diintan waxaan ka mid ahayn isaga ayaa lagu celinayaa. waxay kale la mid tahay ku dayashada gaalada iyo in mataqaanaa la weyneeyo waxyaalaha ay keenaan. taasna waa xaaraan weyn. waa mar saddexaad waxaa bilaabada in mataqaanaa waxyaala xaaraan ah isdhaafsado, rag iyo dumar isdhexgalaan, muusiiqyada la dhagaysto. waxaasoo fitan ayaa ka dhalanaysa. bal gaaladu waxay aaminsan yihiin waa habeenka ugu macsida badan ee macsi la suubiyo. marka dadka muslimiinta ah